السلام عليكم أصحابتي soo dhawaad meel walba aad joogtiin maanta waxaan sameysanaynaa hamburger guriga hamburger sameysanaynaa insha Allah adina si fudud u sameysan kartaa hilib soo diyaarsada asxaabta nooca jecesha hilibka sameyso geel ari lo ani lo soo shiite lo jilicsan tahay geelka oo jilicsan tahay xoogaa ciyooyin kare yani hamburgerkan sidiisa ama digaag ama waxa laga sameeyaa ama digaag ama lo inta badan yani laakiin qasab ma inaad sameystid hilibka jecesha ka sameyso basala si fiican u soo shiiday ku soo shubay hilibki sidoo kale xawaajiga oo himid masalaha ama hilib loogu talagalay ku soo shubay sidoo kale waxa ku soo darsaday maceeye sidoo kale waxa ku soo darsanaa filfish xoogaa oo u badsanaa kuleel yar inuu lahaado araba hilibka hamburgerka dhadhankiisa inuu kuleel yar xoogaa lahaado soo macaan fiican cusbo ku darsaday sidoo kale cusbada qiyaastaada ku darso hadii maraq digaag waa ku bedelan kartaa waa kaasa marka intaas markaa ku soo darsanay xawaajiyada hada oo saan aad fahmeynin geeska oo dhanka oo video marka daawanaysid meesha oo saddex geeska oo dhanka midiga listiya soo gelina ama waa soo qoraa xawaajiyada isticmaalo dhan oo meesha soo ku soo qoraa insha Allah xawaaji badan hada ma isticmaalin ba xawaaji dhub oo xawaaji kuskus oo shiidan iyo xawaaji hilibka lagu dar labadaas la xawaaji ka isticmaalay toona ugu dambeyn ku soo darsanaa iyo sidoo kale kabsar hadaa haystidna waa ku soo darsan kartaa kabsar oo si fiican loo jarjaray yariis loo jarjaray geedka idin tusay barbecue sauce lahaa waxyaabaha la dudubayo barbecue-ga lagu sameeyaa marka sidoo kale waxaa rootigan shiidan oo baqsamaad habcaribi baqsamaad la saddex qaad ku darsanaa rooti shiidan hadii kala dhigi kartaa geedkaas kartoonka camal oo caag camal u sameysan ku imaada meel walbana waa laga helaa saddex qaad oo soo darsada hilibka inta isticmaalooyana waa nus kiilo hilib si fiican intii isku qasaa wax saliid ku darin liin dhanaan iyo waxyaabahaas ma ku darin intaana okay ku ma sha Allah siyaab nafti keeno waraaqahana soo jarjarta asxaabta iyo geedkan oo lagu sameeyo hamburgerka oo lagu naqshadeeyo hadaad haysanin gacantaada dib malahan gacantaada ku sameysan kartaa ku fidfidsan kartaa yani hilibka loo isku jilicsan yahay waraaqdaas muhiim inaad saartid si frinjeerka u gashatid geedka ku soo sameystay waa ku soo fidiyay kadibna waraaqa u dhaxaysiiyay waraaqda afrigeys u soo jirto waraaqaha oo waxa waaye oo foorooyinka loo isticmaalo soo 10 daqiiqo fridge galiye ama frinjeerka qaybta kore oo barafka kadibna waa soo bixiyay kadib saliida dib soo saartay ujeedeenbo halkii xab ugu horeeyay dubooya waa kaasa oo soo saartay kale hilib oo guriga u sameeyay waaye qurax la suugayo marka laakiin intii tabar walba muhiimada waxa waa dhadhanka inuu dhanka macaan noqdo ma sha Allah waan macaan noqdo sidii oo kan oo meelaha maqaayadaha lagu sameeyo kala walaa ka macaan marka guriga sameysida ka siima marka hilibka uu karo halkii dhinacba 10 daqiiqo oo qaatay kadibna waxa sameeyay farmaajada ama jubnada loogu talagalay hamburgerka hilibkii dabka saarna kor ka saaraysa iyo si dhalaasho inta ay si dhalaalayso hamburgerka diyaarsanayna yani simirsana soo jarjar warwareeg soo jarjar waa kaas saddex slide ama saddex jab saare aan salaata soo kala dibka kor ka saare istawaabul diyaarin waa qalaas rootiga soo diyaarsana soo gada rootiga aan ma sameynin foornada soo gata soo diyaarsan soo waa kana farmaajada ama cheese-ki way dhalaashay
dabka kor waxaa ugu saaraya markuu hilibka bislaado kadib aa kor ka saara xoogaa si ay ugu dhalaasho waa ujeedeen. Sooska ama waxa aan marmarsanayo oo loogu talagalay hamburgerka inta shay aa ka sameeyeen waa idin tusaa insha Allah. ugu dambeyn waxaa kor ugu shubanaa ketchup kadibna qaybta kale ku dabooshay waa kaas kulli saan kusoo dhameynaa. marka waa kaas hamburgerkeena saas uu noogu diyaarsan yahay. marka kulligiis saan kusoo dhameynaa asxaabta. video dheeraana hadda waxaas dhan soo gudbinaa aado sooska waxaa ka wadaa kan waaye oo hadda aan marinayo aa ujeediin labada dhinac rootiga waa ka marinaa kadib qudaarteeda dhexda ka gashanaa. wax oo saas u adag ma aha sooskan 3 shay la isku dar la waaye waan idin tusaa insha Allah 3 shay isla socod wanaagsan. marka sooskana waxaa ka sameeyay waa kana mayonnaise sidoo kale khardal ama mustard caagaas jaalaha iyo ketchup qaado oo weyn isku dar baaquli ku shubo waa isku qasi kaliya khalas cusbo ma ku darin liin ma ku darin intaas labada jab oo rootiga ka marmarsanay hadaartin sida ketchup oo kale kor u shubanay maasha Allah dhadhankiisa hamburger na soo jeedin u baahnida hada wixii saas la sameeyay rootiga kaliya banaanka soo kado. waa kaas asxaabta video hada ka hesho fadlan la garay hada ku cusub tahay channelka waxa ka codsanaa inaad subscribe noo saartid gambalaalkana furo si aad ugu mid noqotid asxaabta ugu horeysa oo video u dhaco insha Allah. inta video kan lamid ah kulmi doonana waxaa idinkaga tagay khayr iyo caafimaad fi amaan illah. Assalaamu calaykum.